kulanti wacan wanaagsan saaxiibada ku xiran janaalkeena Nuxur TV ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa khataro soo wajahaya dadyoga Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed kuwaasi oo isticmaalaya barihii dambe daawooyin naftooda khatar geliya. inta aan muuqaalka u gudgelin waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe saarto gambaleelkana furto muuqaalkana like saarto in aad muuqaalka like saarto wuxuu naga caawinayaa in muuqaalkan dad badan oo ka gaar ayna ka faa'iideystaan kagana digtoonaadaan dhibaatooyinka soo wajihi kara. waad ku mahadsantahay daawashadaada. barihii dambe waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay kooxo ka shaqeysta daawooyin dhibaato loogu geysto dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan waxa lagu gadaa daawooyinkan farmashiyaasha goobaha ganacsiga qaar iyo sidoo kale rag guryaha keena daawooyinkaasi oo ka iibiya dumarka Soomaaliyeed. daawooyinkan ayaa isugu jira kaniiniyaal iyo malab ay isticmaalaan dadyoga Soomaaliyeed si ay isugu cayiliyaan taasi oo ah wax xaqiiqda ka fog una keena dhibaatooyin ay ka mid tahay barar wadna xanuun ugu dambeynna sababo geeri. malabka oo ah halista ugu weyn ay wajahayaan dumarka Soomaaliyeed ayaa ah walax kiimika oo la isku daray taasi oo keenaysa in qofka dumarka wadnaheeda uu waxyeeloobo ka bacdina geeri ay sababto daawadaasi. waa kan muuqaal documentary oo diyaariyeen wariyaal Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Munasar iyo Sakariye waxayna muuqaalkan kaga hadlayaan dhibaatooyinka soo wajahaya dumarka Soomaaliyeed shirkado arrinkan ka shaqeysta. sidoo kale waxaad muuqaalkan ku daawan doontaan gabar Soomaaliyeed oo magaceedii codkeedaba la qariyay taasi oo sheegaysa in daawadan isticmaashay kadibna halis ay kala kulantay xanuun oo hay'adda. magaalada Muqdisho waxaa ka socda ganacsi halis ku ah bulshadeena kana qarsoon indhaha madaxda kaasi oo haddii aan wax laga qabanin bulsho badan laynaya. waxay dhaqaale ka sameynayaan dadkeena iyaga oo dalka soo gelinaya daawooyin ay dumarkeena ugu sheegayaan inaysan raawisi doonin ayna ku cayili doonaan. waa Sumayo oo magaceeda runta aanu ahayn waxa ay ka mid tahay gabdhaha isticmaalay malabkan isla markaasna doonaya inay cayisho laakiin waxa ay ka dhaxashay dhibaato ay uga digayso gabdhaha Soomaaliyeed. darteeda malabku isticmaalay muddo 2 bilood waxaan ka bixi lahaa xanuun ilaa hadda aan la jiifo waxaan isku arkay kaliya xanuun waxaan isku arkay korjeexjeex waxaan isku arkay qandho waxaan isku arkay barar jirka dhan ah. marka sidaas daraadeed arrintaas awlaal igu soo siyaaday gabdho badan oo ku hayaa oo ayagana saas oo kale u xanuunsan sidaas aan markii rawi inaan la wadaago. goobaha farmashiyada ayaa lagu iibiyaa. sidoo kale waxaa jirta koox qaabilsan xitaa in guryihiina ay daawooyinkan idinku keenaan. sanadihii 2017 waxaa aad loo yaqaanay kaniiniyo lagu magacaabo Big Power iyo 9 vitamin oo dadku isticmaali jireen si ay isugu cayiliyaan laakiin qaarkood dhibaato ay kala kulmeen. dhakhtar Soomaaliyeed ayaa ka hadlaya dhibaatooyinka laga kulmo daawooyinkaas isticmaalkooda iyo khataraha nololeed ay sababi karaan. malabka qofka markuu isticmaalo wuxuu isku arkayaa calaamadaha soo socda. kow barar wuxuu ku arkayaa halkaas wejigiisa qoorta garbaha maxaa la yiraahdaa inta shafka. waa dhakhtar Adceed oo aan weydiinay inuu inoo sharxo halista uu keeni karo kaniinkan iyo malabka la isticmaalayo ee gabdhaheenu ay aad ugu waasheen iyaga oo cayil raadisa. ganacsi ahaan baa waxa loo keenay dalka Soomaaliya markii la keeno qof kasta waxa laga dhaadhiciyaa ama loo sheegay malabkan in lagu cayilo ama qurux laga qaado. marka dumar badan iyo rag badan oo caata ah waxay u hamiyeen inay malabkan isticmaalaan. saas awgeed ayaa malabkan markaas loo keenay dalka. saas awgeed ayuu suuq ku yeeshay. saas awgeed ayuu qofku markaas wuxuu isku arkayaa barar joogto ah iyo wuxuu ku arkayaa jirkiisa dhexdiisa ayuu ku arkayaa. malabka qofka markuu isticmaalo wuxuu isku arkayaa calaamadaha soo socda. kow barar wuxuu ku arkayaa halkaas wejigiisa qoorta garbaha maxaa la yiraahdaa inta shafka dhabarka dambe caloosha ilaa qaarka kore ayuu wuxuu ka dareemayaa barar oo qofkaas wuxuu isku moodayaa inuu cayilay oo kaato ayuu moodayaa laakiin ma ahan cayil. dadka Soomaalida khatar badan waxay ugu jiraan inay ka qaadaan gaas inay ka qaadaan. khatar badan waxay ugu jiraan hal yara dhiikar inuu ku dhaco. khatar badan waxay ugu jiraan inay ka qaadaan xanuunka cholesterolka. khatar badan waxay ugu jiraan inay naftooda haligaan. marka saas awgeed aniga mar kasta waxaan ku taliyaa ama dadka dhaqaatiirta ay ku taliyaan miisaanka iyo hilibka caatada miisaanka badan in laga fogaado oo qofku uu noqdo qof caafimaadkiisu fiican yahay oo uusan cayilnayn.
berihii dambe waxaa magaalada muqdisho kusoo badanaya dumarka ay dhibaatada kasoo gaarto daawooyinkan ay isticmaalayaan oo ay shirkado gaara ku shaqaystaan si ay dadku uga siraan in daawooyinkan lagu cayilo balse daawooyinka laguma cayilo waxaa laga qaadaa xanuunadaas uu dhakhtarka idiin sheegaya haliso badan ayaa kusoo wajihi kara fadlan ka digtoono walaal muuqaalkana like saar si uu u gaaro walaalahaaga Soomaaliyeed ayna kaga faa'iideystaan si ay kaga badbaadaan dhibaatooyin kasoo wajihi kara daawooyinka noocaan ah waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka.